inta badan waxaad maqashaa DV Lottery oo Soomaali iyo dad badan oo adduunkuba ay ku galeen dalka Mareykanka iyadoo sanadahan dambe ay Soomaalidu si weyn u barteen programkan DV Lottery-ga. Haddaba waa kuma shakhsigii aasaasay ee lahaa fikradda barnaamijka DV Lottery-ga maxay tahay ujeedada loo aasaasay? Warbixinteenan galka xogta ayaynu ku ogaan doonaa ee fadlan subscribe saar si aad ula socoto barnaamijyada kale ee aan halkan ku soo gudbino. barnaamijka DV Lottery-gu waa habka ugu caansan uguna fudud ee lagu helo deganaanshaha rasmiga ah ee dalka Mareykanka iyadoo la qaato waxa loo yaqaan green card-ka ama kaarka cagaaran. haddaba barnaamijkan waxa aasaasay oo ahaa madaxii mishiinkii iyo maskaxdii ka dambeysay fikradda DV Lottery-ga xildhibaan lagu magacaabo Chuck Schumer waa senator ka tirsan baarlamaanka Mareykanka oo laga soo doortay New York sanadkii 1978. Chuck Schumer waa xildhibaan ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ilaa haddana wuu nool yahay waxaanu ka tirsan yahay xildhibaanada baarlamaanka Mareykanka. Chuck Schumer markii uu keenay fikraddan DV Lottery-ga waxa ku raacay oo la ansixiyay 31 xildhibaan oo kale oo ka tirsan baarlamaanka Mareykanka. sanadkii 1987 ayuuna madaxweynihii hore ee Mareykanka Ronald Reagan uu meel mariyay sharciga DV Lottery-ga waxaana barnaamijkan markii ugu horeysay lagu bilaabay oo deganaansho rasmi ah lagu siiyay 2 milyan oo Mexican ah oo si sharci darro ah ku joogay dalka Mareykanka. Ujeedada loo aasaasay barnaamijkan waxa ugu weynaa iyadoo Mareykanku uu ka walaacsanaa hoos u dhac ku yimid tirada dadka qaaradiisa waxaanu Mareykanku doonayay inuu soo celiyo kala duwanaanshihii jiilasha ee dadka Mareykanka iyadoo loo marayo habka DV Lottery-ga.